Beljimka ayaa ku biiray dhowr waddan oo kale oo u yeeray safiirkooda Iiraan weerarkii Tehraan ee Israa'iil awgii. Wasiirka arrimaha dibadda Beljimka Hadja Lahibab ayaa tiri waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan xiisada gobolka waa in laga fogaadaa. Jarmalka, Faransiiska iyo Czech Republic ayaa horey u shaaciyay inay u yeeri doonaan ergada Iiraan ee dalkooda ku sugan, taasoo sii kordhinaysa cadaadiska caalamiga ah ee saaran Tehraan. Dhanka kale, Netherland ayaa sheegtay inay dib u fiiriso safaaraddeeda Tehraan maalinta berita kadib markii ay u xirtay muddo 2 maalmood ah sababa ammaan dartooda. Hase yeeshee waxay ku dartay amniga wakiilada ayaa si dhow loola socdaa, taasoo ka dhigan suurtagalnimada in mar kale dib loo xiro. Czech Republic ayaa u yeedhay safiirkeeda Iiraan kadib weerarkii Iiraan ku qaaday Israa'iil Sabtidii. Diblomaasiyadda Czech waxay si cad u sheegtay Iiraan inay ka gudubtay dhammaan khadadka iyadoo weerartay Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda Xinjiang ayaa sidaas soo dhigay barta X. Maamulka Iiraan waxa uu halis gelinayaa xaaladda ammaan ee gobolka. Waxay timid kadib markii Jarmalka iyo Urdun ay sidoo kale u yeereen safiiradooda Iiraan. Jarmalka iyo Urdun ayaa labaduba u yeeray safiiradooda Iiraan kadib weerarkii ay ku qaaday Israa'iil u yeeridda Urdun ayaa daba socotay waxa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas uu ugu yeeray hadalla gaf ah warbaahinta Iiraan kadib markii boqortooyadu ay faragelisay gantaalada Iiraan, iyagoo ay wehelinayaan Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Dhammaadkii usbuucana dowladda Iiraan ayaa shalay u yeertay wakiilada Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska si ay uga jawaabaan mowqifkooda weerarkii Iiraan ay ku qaaday Israa'iil dhammaadkii usbuucii hore. Saddexda waddan ee Yurub ayaa cambaareeyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan iyo gantaalada ka dhanka ah Israa'iil, kuwaas soo socday habeenkii Sabtidii ilaa Axaddii, isla markaana ay uga argoosanayeen duqayntii Israa'iil ay ku qaaday qunsuliyadda ay ku leedahay Suuriya 1 Abriil. Agaasimaha galbeedka Yurub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ku eedeeyay saddexda waddan laba wajiileen, iyagoo ka soo horjeestay horraantii bishii bayaan uu soo diyaariyey Ruushka oo golaha ammaankii qaramada midoobay, kaasoo lagu cambaarayn lahaa weerarka Israa'iil ay ku qaaday dhismaha safaaradda Iiraan ee Suuriya. Tallaabooyinka militari ee Iiraan ay ku qaaday saldhigyada taliska sahnuuniyadda waa mid si wanaagsan ugu dhex jira nidaamka difaaca saxda ee ku qeexan qodobka 51 ee axdigii qaramada midoobay, waxayna jawaab u tahay faldambiyadyo dhowra oo uu ka mid yahay weerarkii dhowaan lagu qaaday xarunta Suuriya ayay sargaalka ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. Tan ayaa ku soo aadaysa iyadoo la sugayo waxa ka soo baxaya golaha dagaalka ee Israa'iil oo arrinkan ka shirayay. Hase yeeshee, fiidnimadii Isniintii ayaa ku dhawaaqday Israa'iil in weerarka Iiraan uu jawaab la kulmi doono. Isagoo kula hadlayay saxafiyiinta garoonka diyaaradaha ee Natavim, Herzi oo ah madaxa ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in weeraradii Iiraan ee isbuucan dhammaadkiisa ay la kulmi doonaan jawaabo culusa. Hadalkiisa ayaa imanaya kadib markii golaha wasiirada dagaalka ee Israa'iil ay kulmeen si ay uga fiirsadaan jawaabta Israa'iil u diraysa Tehraan oo soo riday in ka badan 300 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo isugu jira. Helvi waxa uu sheegay in Israa'iil ay eegayso ayna ka fiirsanayso tallaabooyinka xiga. Gantaaladan faraha badan ee gantaalada Crosska iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu soo riday dhulka. Dowladda Israa'iil waxay bixin doontaa jawaab ayuu raaciyay. Si kastaba haatee, Maraykanka ayaa isku dayaya inaysan xiisadu sii fidin, isagoo kala hadlaya dalalka gobolka.